ugu horeyn gabadha xaaskayga markii koowaad aan wada kulannay aan isbaranay waxaan ku kulannay taxi dhexdiisa iyadoo taxiga saaran ayaan taxiga soo galay kadib waan salaamnay waxay dhahday niyow ii waran bal horta adiga ma Asiana tahay Soomaalida ma yaqaan marka hore Pakistan ma tahay waxaas dhacday Pakistan miyaa aniga Soomaaliya ahay markaas way dhahday Soomaali ma tahay dadkan oo masaajidka oo galo ku tukada ma tahay aan dhahay markana waxaan dareynaa inaan marka hore aan ay tartiib diinta aad haysato marka waa dhimo lahaan dhahay oo ku bari kara diinta kadib numberka kala qaadanay magaalada aan deganahay magaalo u dhow ayaan ka shaqeynay markaas aan dhahay magaalada jooga masaajidna ka dhow yahay imaw islam darasna lagu baranaysaa sidaan isku baranay marka hore waa tahay goormay ahayd marka waxay ahayd waagaas 2008 bishii labaad ahayd goormaad isguursateen marka gabadhan waxaa isguursanay nikaaxayna koowaad oo dhacay 2008 bishii shanaad arrinta hadalhaynta dhalisay waxa ay tahay in 9 sano kadib aad qabsataan xafladii arooska adinkoo caruur idin joogto oo muddo ah qoys dhisan waxa laga yaabaa in arrintaas ay ku cusub tahay bulshada Soomaaliyeed laakiin qaar kamid ah bulshooyinka kale aysan ku cusbayn marka maxaa kugu dhaliyay in aad hadda dhigto xafladii arooska walahi horta marka ugu horeysa gabadha xaaskayga wadanka sidiisaba waxay yaqaaniin in ninka iyo naagta isla joogaan ka bacdi ay aroos waqtiga lacag helaan samaystaan balse tan anaga ma ahayn arrinta sidooda oo kale balse gabadha xaaskayga marka hore aan nikaaxsanay waan wada hadalnay cidoodana labolihii waan geynay waan siinay waxaan ku wada hadalnay in aroos waxaas aan dhigaynin kadib gabadha xaaskayga urkeeda oo mar walba way ku jirtay in miyaho aniga aroosaan rabaa saan iyaal aroos marka kadib aan gabadha oo qalbigeeda saan u jibinin waayo gabdhaha Soomaali iyo aroosyada wixii tagiisa ay aragtay maseer ahaan adiga arrinta u qabatay marka taqriir badan aan la kulmay hataa aydan gabadhan hadii oo qalbigeeda inuu daga aragtid oo xaaskaaga sax ay noqoto aragtid u sameey waxay rabto adiga gabadha xaaskayga marka waan ka ballan qaaday inaan u sameeyo aroos sidaan arooska oo ku dhacay marka waxay ahayd xaflad aroos ah oo aad ku qancinaysay xaaskaada gabadhan qaba aan ku qancinay sidee loo arkay marka xaflad qoys caruur haysta oo muddo isqabay in ay xaflad aroos ah ay dhigtaan oo intaas qof ka soo qayb galaan sidee loo arkay sidoo ahaa dareenka dadka walahi dadka dhan arin ku cusub ay ahayd dadka badan qaarkood oo ku faraxsanaayeen qaabka xafladda u dhacaysa balse qaar waxay lahaayeen adiga ma fiicna arrintan adagoo caruur qaba balse waxaan dhahay aniga gabadha xaaskayga qalbigeeda inaan jabiyo marabo sidii iyada ku qancaysa inaan u sameeyo sidaas darteed aan u sameeyey ninka hadday la qaybgalaysana waa kaas ka soo qaybgala dadka badan aan saas ugu soo qaybgaleen xasanow waxaynu ognahay koonfur Afrika in lagu dhibaateeyo dadka Afrikaanka ee ka yimaada dalalka kale oo Soomaaliduna ay ka mid tahay dabcan marka adoo Soomaali ah in gabar u dhalatay koonfur Afrika aad guursato oo muddo aad isqabtaan oo xaflad weyn aad u dhigto sidee u arkaan qoyska gabadha walahi waa ku faraxsan yihiin oo waayo badanaa ma dhacdo nin shisheeye inuu sameeyo aroos ama xaflad oo cidda qoyska iyo qoyska kale iskugu imaadaan inay sameeyaan ma dhacdo balse inay isla meher galaan oo isla joogaan oo ka bacdi isku dhaco la dagaalo isfuro waa dhacdaa balse arrinta aniga sida hadda anay gabadhan iskula joognay 12 sano ah oo gabadha xaaskayga aan si qabnay intaas oo haddana xaasadda aan dhiganayno qalbigooda aad u faraxsanayo akaayeen dadkii shacabkii oo magaalada la degnaanay sidoo kale aad ay ugu farxeen waayo badanaa ma dhacdo in aroos noocaanayta oo nin shisheeye oo sameeyo dhinaca qoyskaada maxaad kala kulantay markaad gabadhan guursatay wallaahi alxamdulilah dhanka aniga aabihii waa isoo dhaweeyey balse ragga ila dhashta qaarkood inkasta oo labada dhinac ay kala jireen qaarna suwaal ka mid aheen qaarna iga agajiideen balse alxamdulilah hadeertaanayta ay la qabsadeen oo hadda si fiican gabadha xaaskayga isku barteen way isfahmeen laagu hore ay ugu darneyd balse hadeertaanayta xaaladan la joogo waa gabar oo dhinac walba laga soo